wuxuu yidhi haddii la kala dooransiin lahaa dawlad xor ah iyo warbaahin xor ah waxaan qaadan lahaa warbaahin xor ah waayo warbaahinta xorta ahi iyadaa dhasha oo damaanad qaada dawladnimada xorta ah waa madaxweynihii hore ee Mareykanka Thomas Jefferson. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض دمانتين بكسر دوادة كلن كلا إيو تحنيه نبوغ ذاك كلن كان بوغا نكسر قادنا إنه حال هذا the media effect how news influence government and politics سامين تصحافة ده سيدي وراركو سامين يقولين دولة نمدا إيه سياسة ده بوغا نوحا قري صحفي إيو سكولر وين ومجلس على ده تيم ويلز تيم ويلز بوغا نقرأ وحكتر سنة هيتحناها اللي يراهدو democracy and news أما ديمقراطية ده إيو وراركا سيدا عوانك بوغا كم وقتنا وحوغا كساريا سامينتا أي كل هذا هاي ورتبينتا إيو صحافة دو سياسة ده قارهانا دولة ده الديمقراطية حرية صحافة ده iyo dadka dadweynaha ah ee shacabka ah ay awood u leeyihiin inay go'aamiyaan cid u talin doonto. Jim Wells wuxuu ka hadlayaa ugu horeyn sida gaar ahaan dawladda Mareykanka ay u weyn tahay saxaafadda ama warbaahintu ay qayb lixaad looga tahay dawladnimada. Wuxuu ka warramayaa oo taxaya warbaahinno kala duwan oo marka dalkaasi ku yaala inta TV show ama inta barnaamij siyaasadda inta waxa weeye war baxda aflaamta ay la sameeyo Hollywood u sameeyo qoraalada digital media lagu qoro macnaha guud ahaan saxaafadda Mareykanka qaybta weyn ee ay ka tahay arrimaha siyaasadda uu ka hadlaya taas uu leeyahay marka sababta ay qayb inta leeg uga tahay waxa weeye in dadka marka ku xidhanayna ay xiiseynayaan in markaasi ay door lixaad ay ka qaadanayso marka oo saameyn toos ah ku leedahay dawladnimada iyo siyaasadda dalkaas iyo dalalka kale ee marka nidaamkaas dimuqraadiga ah qaatayba wuxuu ka warramayaa Jim Wells uu leeyahay xiriirka ka dhaxeeya saxaafadda iyo siyaasadda ama siyaasiyiinta gaar ahaan ayuu aad u faaqidayaa wuxuu leeyahay saxaafaddu waxay u baahan tahay ama ay ku xidhan tahay gaar ahaan tan warka qoraysa siyaasiyiinta iyo dhacdooyinka ay sameynayaan taasoo marka ay ku baratamaan ama ay ku loolamaan sidii markaasi ay wararka iyo dhacdooyinka iyo warbixinaha la xiriira ay u qori lahaayeen oo saxafiyiintana marka heerkooda iyo sumcaddooda iyo magacooda uu ku xidhan yahay sidoo kale dad buu leeyahay siyaasiyiintuna waxay aad ugu xidhan yihiin oo ay u rabaan inay helaan maadaama dimuqraadiyaddu ay tahay in dadweynuhu codayaan ay go'aamiyaan cidda u talinaysa in marka siyaasi walba uu helo coverage ama warbaahinta ay ka waranto oo uu ka helo marka muuqasho iyo siyaasadiisa iyo aragtidiisa uu ku soo gudbiyo wuxuu leeyahay marka labadoodu waa laba dhinac oo aad isugu baahan iskuna sidkan laakiin mid waliba ujeedada ay kala leedahay ay kala duwan tahay qofkii saxafiga ahaa ama journalist wuxuu doonayaa isagu sidii uu heli lahaa marka dhacdo uu tabin lahaa aanay dadku ogeyn oo ay tahay inay ogaadaan ama baaritaan ama warbixin ama war cusub uu sheegi lahaa oo marka dadka iyo dadweynaha uu sheegi lahaa saxafiguna wuxuu ka rabaa saxaafadda waxa weeyaan in wax ay dadku ku raacaan ama ay ku taageeraan ama uu ku kasbado uu helo taas marka wuxuu leeyahay keentay marka inay isku sidkanaadaan ama ay isku xidhnaadaan isla markaana waxa weeyaan mid walba ujeedo gaar ah uu yeesho halka marka xiisaha iyo isweydaarku inta badan uu ka dhacaana ay ku xidhan tahay marka saxafiga xirfadyahanka ahina uu yaqaano inaanu noqonin mid loo isticmaalo ama turjumayo oo kaliya inuu iibgeeyo siyaasiga waxa weeyaan xirfadyaqaankiina isna sidoo kale aanu noqonin mid warbaahintu ay warka qaadatay isaga laftiisuna uu isticmaalaya sidii waajandihiisa siyaasadeed uu gudbin lahaa arrimaha xiisaha leh ee Jim Wells uu ku soo bandhigayo buugan waxa kamid ah oo uu leeyahay sidee buu wararku ay u saameeyaan nolosheena guud ahaan marka laga tago siyaasadda wuxuu leeyahay wararku iyo newska ay saxaafaddu qortaa ma aha dhacdooyinkii laakiin waa qoraallo ama muuqaallo ama sawirro ka turjumaya dhacdooyinka mararka qaarna buu leeyahay mar walba wararkaasi dhacdooyinkii dhaba maaha laakiin waa representation iyo wax ka wakiila dhacdadaas marka waxay ku xidhan tahay sida loo soo gudbinayaa iyo sawirka ay bixinaysaa maadaama oo dadweynaha aanay dhacdada ogeyn qofka journalistka ah ee saxafiga ah qaabka uu soo gudbinayo iyo
waxa weeyaan angalka ama qaabka isagu dhacdadaas uga soo gudbinayo wuxuu leeyahay waa muhiim in dhacdooyinka ay soo tabinayaan saxaafadda iyo wariyaashu ay qofka daawanaya ama dhageysanaya ama helaya wararkaasi uu fahamsanaado kow qofkan saxafiga ah aragtiyihiisa qofkan saxafiga ah warbaahinta uu shaqeynaya iyo ujeedada uu ka yeelan karo in uu soo gudbiyo waayo mararka qaar waxay taasi waxay naga caawin kartaa inaan fahmi karno inagoon meeshii joogin ama contextka aan fahamsanayn inaan garan karno warkan waxa weeyaan waaqaca oo ka dhex dhacay wuxuu leeyahay mararka qaar warbaahintu runtay sheegaan laakiin runtay sheegaan waa runta barkeed buu leeyahay oo macnaha been maaha laakiin waa runta barkeed waxaana u dhaxeeya farqi weyn buu leeyahay marka wuxuu leeyahay waana halka markaasi ay taalla buu leeyahay halista ama saameynta aynu sheegayno ee ay ku yeelan karto marka habfikirkeena wuxuu leeyahay habfikirka dadka saxaafaddu si ay u saamayso laba shay oo muhiim ah ayaa ama laba faktor oo muhiim ah baa saameynaya kow waa in wuxuu leeyahay qaabka ay u soo dhigaysa ama qaabka u dhigayso warkaasi dhacday sidii saxaafaddu u dhigaysa saameyn bay ku yeelanaysaa sidaad u arkayso waayo wuxuu leeyahay qofkii warka helay ma joogo iyo frequency ama sida loogu celceliyo iyo dhacdooyinka wararkaasi inta goor warbaahinta ay ka baxday inta goor la taakiiday iyada lafteedu wuxuu leeyahay maskaxda iyo habfikirkii qofka bini'aadamka ah wararka helay saameyn bay ku yeelanaysaa wuxuu leeyahay marka laba shay baa muhiim ah marka laga hadlayo habka dhacdooyinka loo tabinayo wuxuu leeyahay saxaafadda qaarkood waxa laga yaabaa inay waxay tabinayaan ay tahay wax facts ama factual ah laakiin factka iyo xaqiiqadu kaliya kuma filnaan karto si qofku uu representation sax ah uga qaadan karo dhacdadii dhacday laakiin waxa muhiim ah uu leeyahay facts oo kaliya ma aha in sidoo kale contextual ay noqoto oo dhacdadaasi qaabkii ay u dhacday iyo wixii ku hareereysnaa iyo sooyaalkii ka dambeeyay iyo sababihii keenay la fahmi karo wuxuu leeyahay laakiin haddii run kaliya la soo qaato mararka qaar runta laga saaro contextkii iyo waaqicii ay ka dhex dhacday macno badan ma samayn karto waxyaalaha xiisaha leh uu ka hadlayo doodaha buuggan uu kusoo gudbinayo waxaa ka mid uu leeyahay waxaa loo yaqaano saxaafaddu ma waxay samaysaa agenda setting ama miyay dadka jihaysaa oo dadku waxay ka fikirayaan iyo waxay ka hadlayaan iyo waxay ka warramayaan bay keenaan mise dadka ayaa iyagu saxaafadda jiheeya oo agenda setting u sameeya publicu oo keena ishuyada ay ka hadlayaan waa dood lagu kala duwan yahay laakiin waxaad moodaa inuu ta'kiidinayo oo uu leeyahay waxay u eegaanaysaa in horta ma jirta buri saxaafada aan odhan karno iyadaa agenda setting samaysa ama iyadaa jihaynta iyo ishuyada iyo arrimaha laga hadlaya keena laakiin saxaafaddu waxay daba socotaa storieska iyo dhacdooyinka iyo sheekooyinka dadweynaha iyo dowladaha iyo siyaasadaha ka dhex dhaca taasay qodqodaa taasay dabagashaa taasay xaqiiqadooda ay usoo gudbisaa waxa weeyaan dadka laakiin buu leeyahay sidoo kale dawladuhu waxay ku dadaalaan ama xukuumadaha iyo dadka siyaasadda jooga iyaga laftoodu in ay saameyn ku yeelan karaan waxay tahay inay saxaafaddu ay ka hadasho ama ishuyada ay rabaan inay ku mashquulaan si markaasi arrimahooda siyaasadeed ay u gaadhaan wuxuu ka warramaya tusaale ahaan weliba dalka maraykanka oo kale tusaale ugu soo qaadanaya mararka qaar oo dhacdooyin waaweyn ay ka jiraan maraykanka oo saxaafaddu ay fox garayn lahayd ama ay ka hadli lahayd in dowladda iyo madaxweynayaasha iyo dadka communicationska u qaabilsan dowladuhu ay iyaga laftoodu sameeyaan war kale waayo foxka marka warbaahinta siyaasaddu waxa laga yaabaa in marka uu leexan karo oo ama madaxweynihii barnaamij aan ku talagalsanayn loo soo qadimo oo sameeyo ama hadallo dadka ka jeedin kara foxkoodii uu sameeyo marka wuxuu leeyahay dooda ah ma warbaahinta ajendaha samaysa mise siyaasiyiinta sameeya mise dadweynaha waxay u ekaanaysaa buu leeyahay sida digaagadda iyo beedka iyo ma hor dhashay doodii ahayd oo kale laakiin inta badan buu leeyahay waa wax dabiici ah inta badan dhacdooyinka ay warbaahintu daba socoto oo marka iyagu iskood usoo develop garoobo oo u samaysmo oo ay qodqodaan oo ay ka daba tagaan qaybaha kale buugga waxyaalaha xiisaha leh uu kaga hadlayo Jim Wells waxaa ka mid ah oo uu aad u faaqidayo sida madaxweynayaashu gaar ahaan kuwa Mareykanka oo kale uu tusaale ugu soo qaadanaya ay warbaahinta u isticmaali jireen ama sida in madaxweynayaasha iyo dowladaha go'aanadooda ay qabanayaan iyaga laftooda ay u saameysay warbaahinta wuxuu aad u faaqidayaa kala dhacdada loo yaqaano dhacdadii marka Watergate ee madaxweyne Nixon iska casili doono ugu dambeynta iyo qaybta ay laba wariyo oo dabagal sameeyay oo dhacdada faaqida ay u keeneen in ilaa madaxweynihii ay noqoto marka fadeexad uu isku casilo oo wax weeyaan xilka kaga tagi karo
waxyaalaha kale oo Jim Wells ka hadlayay sida ay u saameyso siyaasiyiinta laftooda iyo sida ay qaarna u dili karto qaarna u nooleyn karto warbaahinta iyo dhacdooyinka ay ka waramayaan iyo sheekooyinka ay qorayaan waxa kamid ah Obama kala soo qaadanay ulay 2004 Obama markii uu khudbadda u jeedinayay madaxweynihii xisbigiisa ka tartamayay uu ololeynay waxa keentay iska daa madaxweynaha in la focus gareeyo oo xoog la saaray in isaga laftiisa loo arko in uu noqdo qof potential ah oo madaxweyne noqon kara taasoo keentay buu leeyahay in 2008 loo doortay inuu madaxweyne noqdo waxa kale keenay xil buu leeyahay marka warkaasi ay warbaahinta ay u faaqiday loo rogrogay saxaafaddu ay arinta u qaada dhigtay isagoo markaa buuxiyay buu leeyahay astaamihii keenay markaa warbaahintu in war u aragto saxaafaddu in war u aragto oo qof ka duwan markaa siyaasiyiinta caadiga ahayd u noqoto ama ha noqoto habdhaqankiisa ama hadaladiisa ha noqoto ama originkiisa xagga ka yimi ha noqoto ama ha noqoto waxa weeyaan habfakarka khudbadda uu jeedinaya ay xambaarsanaydba qaybaha dambe ee buugga Jim Wells wuxuu kusoo bandhigayaa warbaahintu sida aanay u ahayn hay'ad dawli ah oo sida Mareykanka oo kale u xilibsanaan Congress-ka waa la doortaa Senate-ka waa la doortaa madaxweynayaasha waa la doortaa Justice Department-ka waa la magacaabaa nidaam maran laakiin buu leeyahay tiirka afraad dalka Mareykanka oo kale iyo dalalka kale la midka ah ee nidaamkooda qaatay tiirka afraad sida ay saxaafaddu u tahay iyo sida ay shaqada ay qabato ee aan wax weeyaan cidina u igman laakiin buu leeyahay marka qaar kaba muhiimsanaan karta laamaha kale iyo sida ay dawladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo taabagalnimada dawladnimada hagaagsan ay uga qayb qaadato waxyaalaha kale ee buugga uu ku faaqiday waxa kamid ah halista iyada lafteeda warbaahintu ay leedahay oo aad u soo xiganay marka qoraaga weyn Noam Chomsky iyo dooda uu ka qabo warbaahinta in dad kooban oo elite isku sheegay iyagu ay maamulaan oo dadka ay rabaan wixii ay rabaan inay u sheegaan iyo sidoo kale waxa ka waramaya marka qaar warbaahinta lafteedii inay noqoto iyada lafteedu warkan ay iibinayso inuu product noqdo buu leeyahay ama wax ay ka ganacsato oo xayeysiis ama ku xigsiiso ama campaignada siyaasiyiinta ka ganacsato in iyada lafteedu wuxuu leeyahay arrintaas ay saameyn ku yeelanayso oo xaglin weyn ay keeni karto guud ahaan buuggan waa buug aad u faaqidaya xiriirka ka dhaxeeya marka siyaasiyiinta siyaasadda iyo saxaafadda iyo sida ay isugu lamaan yihiin ama ay u tahay in qof walba uu fahmi karo si loo ogaan karo marka warka la sheegayo iyo warka maalin kasta warbaahinta aad ka dhageysanayso ama aad kala soconayso ama aad ka helaysaa aad fahmi kartid marka halka uu ka socdo iyo xagga uu ku socdo buug xiiso badan qof kasta oo akhri karana aan kula talinayo inuu akhriyo buugga kan ku xiga intaan ku kulmi doonana waxaan idinku dhaafayaa dhammaantiin buug wadaag waa adduun wadaag mahadsanidin hoyga agabka waxbarashada iyo buugaagta ee Hema Books. Hema Books waxaad ka heli kartaa agabka waxbarashada noocyadooda kala gedisan, buugaagta dugsiyada barbaarinta hoose dhexe ilaa sare, agabka shaybaariyada sayniska iyo guud ahaanba buugaagta akhriska guud oo ku qoran Soomaali, Ingiriisi iyo Carabiba. Soo buuqo Hema Books oo baahi tir maskaxdaada.